marka dadka waaweyn ee waayeelka la su'aalo ma jira waxyaalo aad jeclaan lahayd inaad samayso yaraantaadii dhallinyarnimadaadii ama markaad iska weyn aqliyeysatayba ma jira waxyaalo aad ka walwalsan tahay amba aad ka xun tahay dadka waaweyn waa dad waayeela oo gaadhay 60 70 80 qaar baa 90 jira su'aalaha marka la weydiiyo mid walibaba su'aalo kale jawaabo kala duwan ayay siiyaan laakiin waxa badiyaa soo noqda saddexda halkan aan kaaga sheegayo tawo horeysa horta ay in yar ka yar xun yihiin waxa weeye inayna faamilkooga waqti ku filan ayna la qaadan waxay soo hadal qaadaan hooyo aabo hooyadii amba aabahay bay dhahdaan amba waxay soo hadal qaadaan ciyaalkooga amba waxay soo hadal qaadaan xaaskooga laakiin markay isku soo duubaan waxay dhahdaan faamilkayga oonan waqti badan aan la qaadan waxaan jeclaan lahaa haddii aan dib waqtiga ugu noqonayo inaan faamilkayga waqti la qaato waxa kale oo idhaahdaan in ay jeclaan lahaayeen inay waxyaalahay ay rabaan ay jecel yihiin inay isku dayi lahaayeen waxa jira arrimo ay rabeen inay qabsadaan oo ayna ku dhaqaaqin marka ilaa hadda maskaxdoodu way ku jirtaa talow haddaan isku dayi lahaa sidee bay soo bixi lahayd arrintaasi talow haddaan isku dayi lahaa wax ma ii hirgeli lahaayeen meel bay maskaxdooda kaga qufulantaho wuxuu ku yar hayaa way isku yar canaantaan ayagu imika waxay taagan yihiin bacdamaanu da'daa soo gaarnay wixii amba noo hirgalo amba inuu noo hirgelin waxaan jeclaan lahayn arrimahan niyada ku haynay inaan bal in yaroo riskiga intaanu qaadano isku dayno bilii dee natiija nooga soo bixi lahayd haddayna nooga soo bixinna halkaanu gaarno waanu ku qanacsanaan lahayn marka bileyda iyo talowdaas yaa iga hari lahayd bay qaarna ku jawaabeen marka talabaad ee maskaxdooda kusoo noqnoqota iyaduna waxa weeyaan inay waxyaalahay rabeen inay qabsadaan inay dee more riskina yar qaataan oo isku daydayaan taana wuxuu ku yarhayaa in yaroo warwaru ku yarhayaa saddexaadna waxa weeyaan inay iska dayn lahaayeen orodka badan ay ordayaan nolosha daba ordayaan inay waxay jeclaan lahaayeen mid baaba ku sheegay maalin aan ka daawanayay meel muuqaalo wuxuu yidhi sidaan koofiga markaan cabayo u dhandhansado dhandhankiisa markaan sidaa u cababa aan dhandhaminayo oo saveurkiisa iyo udgoonkiisa aan dareensanahay ayaan jeclaan lahaa nolosheeda inaan u dareemo buuri waqtigu hore iga cararay hore u booday waxa jira buuri waqti xaadirka aan joogo 80 jir baan ahay haddaan wuxuu yidhi ninkii wareysanay buu ku yidhi haddaan ku idhaahdo wuxuu waqtigeyga igu soo dhaafay wax yar baan ka xasuusanahay maad la yaaba buuri sababtuna waxa weeyaan buu yidhi inaan ku jiray uun mar walba tartan orod degdeg halkan gaadhay adiguna gaadh wuxuu yidhi orod umaan ku jiray orodkaan ku jirana ma dareemin buu yidhi noloshaydii siduu igu dhaafay maba garanaya buu yidhi marka wuxuu ku jawaabay odiga waayeelkaasi wuxuu ku jawaabay inuu jeclaan lahaa sida koofiga markuu imika cabayo ugu dareenayo macaankiisa udgoonkiisa inuu noloshiisana u jeclaan lahaa koofiga waad aragtaan wuu kulul yahay aayar baa la iskaga cabaa marka inuu noloshiisana aayar wax iyo tartiib wax iskaga qabsan lahaa jeclaan lahaa inuu dareebo tallaabo kasta uu qaado marka taa saddexaadna badiyaa ayagu qaar kalena waxay idhaahdeen waxaan jeclaan lahayn inaan moor ku orano awlaadayda inaan jecelnahay aabbo waan ku jecelahay hooyo waan ku jecelahay inay qofkay la nool yihiin ay ku oran lahaayeen at least intuu qofkan is adadkeynayo waan ku xiisay waan ku jecelahay inuu moor qofkan dhageysan lahaa oo isagu mar walba problemadiisuunan ula imanayno oranayn sanaasiya waxan ay haysta oo tiisa uuna raacayn uu jeclaan lahaa inuu dadka ku hareereysanay isaga jecel inuu time uu ku dhageysto uu heli lahaa dadna sidaas ayay lahaayeen waxaan anu muuqaalkan maanta kugu sameynaya adiga inaynu iska dayno degdega badan orodka badan tartanka badan noloshan lagu dhisayo rafaadka iyo orodka marka stay by stay wax iskaga qabso qoyartaada wax iskaga qabso intaad maanta neefta kugu jirto oo nasiib rabbi raxmaan allah weyne waaxidkana sameeyey oo kuu siiye jaanis aad ku toosto ood maanta soo taagan tahay ood caafimaad qabto halkaa waxaa ka cad inuu ilaahay weli uu arrimo kale ku hayo weli addee jaanisyo kale leedahood wax ku qabsatood noolaanayso waxaad adduunkan aad helayso cidaad guursanayso inta awlaaday dhalaysid inta shaqeed helaysa ama aad ka tegayso inta qofeed aad maad aragtay asxaab la noqonayso bal u fiirsada yaraantani ilaa iminka
iskuulka asxaab baan lahayn dadkii waan kala baahnay waa la kala dhoodhoofay amba waa la kala weynaaday ninba hoobiyo kaluu yeeshay nolol kaluu yeeshay teenage baan soo gaarnay asxaab kale galaas walboon kalno asxaab jadiidaan samaysana maanta maynala joogaan xabad iyo laba unbaa lasoo tarin karaa waxa weeyaan noloshan cidaad asxaab la noqonayso cidaad la noqonayn cidaad guursanayso cidaad kala tegaysiin cidaad isku waaraysiin oo intaad guursataan aad isla noolaanaysiin oo isla goowaysiin yacni wax kasta wuu kuu qorayaa kaan noloshan rafaadka iyo degdega lagu dhisayo ka ilaali naftaada walbahaada gelin naftaada warwaraa gelin ha iqaabin sidii kale noloshu waa run in badan oo macaan baa jirta laakiin waxaynu ku jirnaa saan muuqaal horeba inagu sheegay daarul imtixaan halkani daarul imtixaan weeyaan imtixaanka natiijadeeduna walaalayaal maalinta qiyaame ayaan helaynaa natiijadeeda ma u soo samirnay ma u soo dadaalnay ma u soo xasilooni ilaahay markasta wax adag aynu aragno ilaahay ma u cararnaa yacni natiijadeeda yowmal qiyaamahan helaynaa inaynu janno helnay amba wax kale marka ilaahay jannada dhammaanteed hayna geliyo nolosha tartiib u dhiso tartiib iskaga dhisho walbahaada ha gelin degdega iska ilaali tartanka iska ilaali haddaad qof la tartamayso xagga businesska fikradaa lagu tartamaa laakiin qof biniaadana weligaa hala tartamin waayo adduunkani jaranjarooyin badan buu leeyahay marka horeba nolosha ka daa degdega wax kastoo ilaahay ku siinayo way qoran yihiin already way yaalaan laakiin sanadba sanadka kusii xiga waxbaa laguu soo sii deynayaa sanadkan waxaanaad heli sanadka dambe arrin kale aad heli sanadka dambe arrin kale aad heli bal taariikhdaada dib u soo eeg noloshaada dib u soo eeg marxalad walba oo adkayd waxbaa ka dambeeyey wax cusubbaad heshay wax kastoo adag wax cusubbaa ku xigay inay kaa dhaadhacsanaato wax walba oo ilaahay kugu talagalay waaba diyaarba adduunkan waaba ku diyaarba ma wada arkaysid mar kale laguma soo wada sii daynayo laakiin waa diyaar waxaan horaa loo sii qoray wax walbood cunayso cabayso cidaad baranayso cidaad asxaab ka dhiganayso cidaad asxaabnimadii aad kala haraysaan cidaad guursanayso cidaad kala tagaysaan cidaad haddana dib u guursanayso amba cidaad guursanayso la gaboobaysid yacni isla gaboobaysiin in waxaasoo dhan uu qoran yahay imise shaqo ayaad heli ka tegi mid kale heli amba waxaad asaasi wax kaa khasaari wax kuu faa'iidi doonaan waxaasoo dhani maaha waxaad adigu maanta qoranayso waa wax mar hore ilaahay kuu qoray waa diyaar adduunkan actually hadda imika ahaan aad nooshahay uu ku jiraa waxaas laakiin mar kaliya laguma shaacinayo mar kaliya laguma siinayo waxaa lagu soo yar sii deynayaa hadba wax yar 20 jirkaagii waxbaa lagu soo sii deyn 25 28 30 40 50 60 hadba waxbaa lagu soo sii deynaya ood ku noolaanaysaa marka wuxuu ilaahay kuu qoray sinaba kuma seegaysid ilaahay wuxuu kuu qoray qof kale kaama siinayo isagaa kuu qoray kuu ogol kula doonaya ku siiyey waa gift weeyaan giftiyada walaalayaal wuxuu doonaba ha noqdaane haddaad ilaahay jeceshood aaminsan tahay oo maxay ahayd aakhiro doonaysa ilaahay la kulanto waa inaad aaminto waa inaad yaqiin yeelato nafta in tartanka badan aad adayga ka daa anu waxaan ugu celcelinayaa muuqaal horena waan ku sheegay inaad tartanka iska daysid markaad tartanka badan ee dadka aad la tartamayso aad yarayso adiga isku soo laabanaya markaa adiga unbaa naftaada la xisaabtamaya qof kale lama xisaabtamaysid qof kale lama ordaysid adaa isla xisaabtamaya markaad adigu doonaysa inaad tartiibtaada iskaga socoto aad tallaabada inkuu leegaad qaado aad qunyar wax iskaga qabsato adaa isku soo laabanaya dad kaleba uma jeedid markaa marka taana waxaa kuu fududaynaysaa in marka u horeysaba aad maskaxdaada ka dhaadhiciso wax kastuu ilaahay kuu qoray already wuu yaalaaba bes waxay tahay inaan ficila la imano si aan u helno de waa sida ciyaarta yaree puzzleka oo kale puzzleku wuu kala daadsan yahay soo maaha hadba dee qayb yar baad soo helaysaa iskuna nabaysaa waa sidaasoo kale weeyaan nolosheenu inaynu aroor kasta markaynu soo kacno aynu ficilo iyo actiona la imano si aan puzzlada hadba step by step aan iskugu geegayno ay nolosheenu markaasi ay u dhismato hadduu la idhaahdo walaalayaal noloshaada ka faa'iideyso nolosha waa qaali nolosha ka faa'iideyso waa giftiga ugu qurux badan qof heli karo waa nolosha waa caafimaadka waa waqtiga marka waqtiga ka faa'iideyso caafimaadka intaad hayso ka faa'iideyso noloshaada intaad maalin kaste
aad neefsanayso ka faa'iideyso. Iminkaad haysataa waqtigaa hadba intaad awoodeyso wax kula gaadh, wax kula qabso. Tallaabadana in kula iska qaado, wax degdego ood nafta aad geliso dhibaato oo qof baan kula tartamaya amba qofkaasaan u ekaanaya aad nafta ugu iqaabso ma laho. Step by step taada iskaga soco wax kaste oo Ilaahay kuu qoray sidii camal box oo kale kugu jira. Cishaba xabad baa lagu furaya, lagu soo saaraya oo lagu siinaya. Insha Allah tartiibtaada wax iskaga qabso adiga ahaw.